waxaan rabaa inaan ka hadlo arrin beryahan aad noogu soo laalaabatay oo aan rabo bulshada Soomaaliyeed inaan ka baraarujiyo. Arrinkaas oo ah marka muwaadin Soomaaliyeed uu geeriyoodo ama ehelkaaga ha ahaado mise qaraabadaada ha ahaado ama mid aad dhashay mise mid ku dhalay ha ahaado, qof walbo Soomaaliyeed oo jooga dunida dacaladeeda ama gudaha Soomaaliyaba, marka uu dhinto qof ehelkaaga ah oo uu ku dhinto gurigaaga, maxaa waajiba loo baahan yahay oo ka saaran? haddii la dilo sabab kastaba ha ku dhintee ama amar ilaahay asoo gurigiisa joogo uu dhinto, waxaa waajib kaa saaran yahay number 1 saddex arrimood ka hor intaada duugin. saddexda arrimood oo waajibka kaa saaran yahay ka hor intaada duugin waxaa ka mid ah: 1, waxaa qasab kugu ah inaad geyso xarunta baarista dembiyada si lagu siiyo warqad aad ku geynayso isbitaalka si loo soo cadeeyo sababaha uu dhintay. number 2, markii isbitaalka la soo cadeeyo sababta uu dhintay, waxaa lagu soo celinayaa warqadii cadeymaha oo isbitaalka soo qoray hoggaanka baarista dembiyada CID-da, waxaana lagugu xiray warqadda cadeynta dhimashada ah. qofka markuu gurigaaga ku dhinto waxaad wargelinaysaa saldhigga booliiska ee kugu dhow. sabab kasta ha u dhinto, ha la dilo, sun ha cabo, amar ilaahay ha u dhinto, xanuun ha u dhinto, sabab kastaba ha u dhintee, waxaad geynaysaa aad wargelinaysaa saldhigga booliiska ee kugu dhow, waxaana lagugu caawinayaa inaad geyso xarunta baarista dembiyada CID-da si lagu siiyo warqad cadeynaysa sababta uu dhintay muwaadinkaas. dhammaan wadooyinkan aad maraysaa waxay kaa caawinayaan: 1, haddii muwaadinka uu leeyahay dhaxal ama akoono uu lacag ugu jirto ama uu leeyahay aqoonsiyo dibadda ah ama baasaboor uu leeyahay ama dhaxal uu ku leeyahay qayb ka mid ah shirkado ganacsi, waxaa laga rabaa markii uu odiga dhinto haddaad iska duugato ee aad u tagto ee aad tirahdid mar hore uu dhintay shakhsigaas, laga aqbali maayo. waxaa lagu leeyahay warqadda cadeynta dhimashada keen. warqadaas oo ah warqadii CID-da laga bixinayo. marka dadkayga Soomaaliyeed aqoon la-aantaas ayay waxaa kaga dhuntaa hanti badan, waxaa kaga dhunta xaq badan oo ay lahaayeen. tusaale waxaa iigu filnaaday waxaa dhintay oday, ilmihiisa qaar ka mid ah ayaa tegay bangi, waxayna weydiisteen in aabbahooda akoonkiisa wixii ugu jiray lagu wareejiyo. markaasaa lagu yidhi aabbahaaga ma dhintay? haa. warqadda cadeynta dhimashada booliiska ma wadataa? maya. way ii yimaadeen, anay warsadeen, warqadaasaana laga rabaa. markaas waxaa ku yidhi aabiina goormuu dhintay? 6 bilood ka hor uu dhintay dheh. 6 bilooda ka hor hadduu dhinto waxay noqonaysaa inaan dhaar iyo markhaati iyo wax isku kabno. laakiin haddii uu markuu odiga dhintay la geyn lahaa xarunta baarista dembiyada CID-da, la geyn lahaa, la baari lahaa xanuunka u dhintay iyo wixii, booliisku uu cadeyn lahaa, shakhsigaas muwaadinka wuxuu xaq u yeelan lahaa inuu isla markiiba furdaansado wixiisa, uu leeyahay markii cadeynta keen uu dhiibo warqadihii. muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalka, kuwa dibadda ayaga waaba la socdaan oo adduunyada qof dhintay xitaa hadduu saqiiriya liskama aasi karo, hadduu xali dhashay liskama aasi karo, sababtoo ah muwaadin kasta markuu adduunyada kusoo biiro wuxuu ka mid noqday. haddii aad Soomaali tahay ee aad ku dhalatay gobolada dalka Soomaaliya 18 gobol mid ka mid ah, habeenkii aad dhalata waxaa ka mid noqotay muwaadiniinta Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waxaana kugu xisaabtamaya Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. haddii uu dhinto waxaa la rabaa sabab uu dhintay in la cadeeyo. laakiin hadda annaga dadka aan qaan gaarin, ilmaha yarka ah naftirkoodii, haddii aabbihiisa uu maqan yahay, markuu dhinto cunugii aabbihiisa maqan yahay, aada u sheegto tira wiilkaaga dhintay, waxaa laga yaabaa inuu beensado, waa la dilay iyo wax sun baa la siiyey iyo waxyaabo uu keen. laakiin markaad geyso hoggaanka baaris dembiyada ee la cadeeyo sababta uu dhintay, la baaro,
kiiskii la caddeeyo, waraaqihii aada wadato, caddeymihii aada tusto, waxay noqonaysaa markhaati nool in meydka la caddeeyo sababta u dhintay. la yaab ma ahan, waa sharci adduunyada ka jira. shaksiga haddii uu dhinto waxaa loo baahan yahay in la helo shahaado caddayn wuxuu u dhintay. xanuun hadduu u dhintay, aabbahaaga xanuun u dhintay cidi kuguma qabsanayso. laakiin aabbahaaga hadduu hanti, akoono iyo dibadda iyo meel walba uu ku lahaa, inaad baadi goobataa hantidaasa waxay kugu qasbaysaa in dhimashada aabbahaaga aada u hesho shahaado caddayna oo aabba inuu xilligaas dhintay, booliiskana ay caddeeyaan, isbitaaladana ay caddeeyaan. haddii xabad ama qof ku dhuftay mise asaga ku fakatay mise isku dhuftay, sabab kastaba ku timaadeena, dhaawacan iyo waxaan sababta u dhintay, xabad ina u dhintay waa in la caddeeyaa. hadhow qofkii aada megta ka rabtay mise dembiga kaala dhexeeyey, godob kasta balan gala. waxa ay qabsatay dhacdo, dad baa noo yimid CID da anagoo joognaa, waxay nagu yidhaahdeen aabbahaygii oo 2 sano ka hor la dilay, gartiisa loo fadhiistay, odayaal dhameeyeen. ciddan waxay aqbaleen in aabbahay ayaga ay dileen, diyay qaateen. 2 sano kadibna waa nagu inkireen. markaas waxaa ku yidhi haye aabbahaaga muxuu u dhintay? xabad la isweydaarsaday, 2 qol isweydaarsaday dhexdooda ku dhintay, qolada dhinacaasayna xabadda ka timid. okay, yaa caddeey inuu xabadda u dhintay, xabaddaas u dhintay, sabab uu ku dhintay in la caddeeyo, xabadda dhinacaas ka timid, waxaas dhan booliisa kuu caddaynayo. marka dukumentiyadu dadkayga Soomaaliyeed aad uma jecla. waxaan ka codsanaa ummadda Soomaaliyeed inay 3daas arrimood dartood, qofka hadduu kaa dhinto Muqdisho joog, gobol kasta joog, meel kasta joog, laana ka furan baarista dembiyada, warqad caddeyna ku sii karto, warqadda dhimashadana ay xaqiijin karta. marka waxaa idinka codsanayaa in qofka hadduu kaa dhinto, number 1 aad la xiriirto xarunta booliiska kugu dhow, aada wargeliso, xarlaanta baarista dembiyada geysid, dhakhaatiirtii loo waco, la caddeeyo sababta u dhintay, la baaro. haddii uu xanuun sokor haysay u dhintay, haddii wax kale u dhintay, la yidhahdo xanuunkaasoo u dhintay, taariikhdaasoo dhintay, sababtaasoo u dhintay, si ummadda Soomaaliyeed ay ula jaanqaado mawduucyada iyo sharciyada booliiska. insha Allah isbuuc kasta waxaan soo dhigi doonaa kelib aan uga hadlayno wixii muhiimad ah oo ummadda Soomaaliyeed ka qaldan yihiin. rabaa inaan mawduucayga ku koobo, haddii uu qof kaa dhinto, sabab kasta ha ku dhinto, jiro kasta ha disho, ama xabad ha disho, ama bool ha ka dhaco, mise nooc kastaba ha ku dhintee, haddii qof walaalka, waalidka, ehelkaaga ama aad taqaanid kula noolaa uu geeriyoodo, sabab kasta ha u geeriyoodee, walaal marka ugu horeysa intaada dugin ka hor 3 tallaabo qaad. tallaabada koowaad oo ah ku wargeli xarunta booliiska kugu dhow. tallaabada labaad, hoggaanka baarista dembiyada lagu dirayo markaad tagto, dhakhtarkaa caddaynaya sababta u dhintay, markuu soo caddeeyana warqadda dhimashada qaado, caddaynta dhimashada qaado. haddii qofkaas xaq uu laan haduudsiinin, haddaad warqadaad saysanin wax badana ka halaawaya. haddii adduunyada ay tahayna waaba lagu weydiinaaba marka hore, uu qofka baasboor dibadda ka yimid uu haysto, intuu dhintay iska duugto, inuu dhintay caddeyna la weydiinaa. marka waxaasoo dhan way kaa anfacaysaa. walaal waxaan kugu baraarujinayaa, haddii qof ehelkaaga uu dhinto, ama sabab kastaba ha ku dhintee la dilo, ama si kastaba ha ku dhintee, la xiriir xarunta booliiska ee kugu dhow, la xiriir. waxaana samaysaa hoggaanka baarista dembiyadana ka qaado ama warqadda caddaynta dhimashada. marka 3daas arrimood sameey intaada duugin haddii uu qof kaa dhinto. waana mahadsantihiin.